asaas u ah wada shaqaynta. Haddii aysan wada shaqayn jirin qaran ma dhismo. Wada shaqayntu waa waddada keliya ee lagu gaari karo horumarka guusha. Dalkeennu wuxuu soo maray burbur badan, jahwareer siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Waxaa luntay sharaftii iyo maqaamkii aynu ku lahayn adduunka. Haddaba si dhibaatooyinkaas looga soo kabsado, waxaa muhiim ah in la helo wada shaqayn iyo midnimo. haddii wada shaqaynta maanta khilaaf ma jiraayo, waxaan la tartamaynaa caalamka marka intiisa kale yaan la tartamaynaa, oo aan hubo inaad og tihiin hadda inaan ka harnay muddo 30 sano inaan ka harnay. wax badanna lagama horeeyo, maxaa yeelay Soomaali baan nahay, dad firfircoon baan nahay, dad isleh baan nahay, dad dalkooda kheyraad badan yaan nahay, dad aqoon badan aqoon leh baan nahay, dad islaan nahay, dad qablahan nahay. muddo yar yaan ku soo noqon karnaa, muddo kooban yaan ku soo noqon karnaa. digweyn baa inaa hele sidaanu ku dhaafilay dhamacda uga bixi lahayn cusub xalay roob ku dhacay dooble u tagilay dibtoon jibaxnayo habeen dhelmad bay rabtaa inaan dhalan doolayo daraar socod bay rabtaa wadani dhiiranun baqayn in loo dhididay rabtaa. Wada shaqaynta iyo u adeegidda danta guud waxaa laga dhaxlaa horumar bulsho iyo hiigsi wanaagsan. Sidoo kale faa'iidooyinka midnimada iyo wada shaqaynta waxaa ka mid ah in la helo dad is-ogol oo wax wada qabsan kara, in wax laga qabto nabadda iyo xasiloonida, in la helo nidaam iyo kala dambeyn, dalkeenuna uu la tartamo wadamada adduunka. Wada shaqayn la'aanta natiijadeedu waa tafaraaruq iyo in bulshadeennu ay ka harto dhigeeda caalamka. Afrika iyo wadamo kale oo adduunka ku yaala ayaa soo maray xaaladda dalkeennu iminka ka soo kabanayo. Wadamadaasi waxa ay uga soo gudbeen midnimo iyo wada shaqayn. Innaga dalkeennu ma mudna sanado badan kadib inuu ku sii jiro sida aynu hadda nahay. caalamku waa la kala horumaraa. haddii hadda aan 20 kale ku darno waana laga tagayaa, si aad ah yaan looga tagayaa, aan ka daba tagi karin. haddii lagaa tagana waa lagu gumeynayaa. dhaqaalaha la isku gumaystaa, xoogga ciidanka la isku gumaystaa, dowladnimada la isku gumaystaa, deganaanshaha siyaasadda la isku gumaystaa. sida hadda aan nahay wax qurxoon maaha. ishii xeeradii marshay dhaxda loo xirtay rataa qabyaaladon loo dhowaa sharciga ku dhaqay rataa badan bay kala dhaxadeen dhammaan isku soo duu midnimo u dhaqbay rataa. Marka laga soo tago in dalkeennu u baahan yahay iskaashi iyo wada shaqayn si aynu lugaheenna ugu istaagno, dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aaminsan in sirta kale ee aynu ku guulaysan karno ay tahay in Ilaahay laga baqo oo loo laabto iyo in la isu tanaasulo. marka wixii naga halaabay waa naga halaabeen. ilaahayna noqono waqti gadaal buu u badan yahay. maanta yaan la fiirin, yaan la oran maanta haddaan wixii waayo nin kale isu waxba helin, yaan la oran. inaad tiraahdo allah ku calfo walaal waa ku siiyey, waa kuu quuray, adna biri ii quur oo kuu tanaasulay. intaas way wax lagu kala hormaro.